asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad kanaalka Afifa Warsame. Waad ku mahadsan tahay la joogidaada iyo sidoo kale soo doorashada aad soo dooratay inaad kanaalkayga rakooto. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago soo koobida buugga la yiraahdo The Alchemist. Buuggan The Alchemist waxaa la qoray 1988 waxaa qoray maaragtay Brazilian ah oo buug markii koowaad luqadda Portugiiska ayuu kusoo baxay. Qorayga waxaa la yiraahdaa Paulo Coelho. buuguna waa buug qaab sheeka u samaysan laakiin se runtii aqrintiisa aad ku raaxaysanayso sidoo kalena waxyaabo badan aad ka faa'iideyso. bal markaan isku daya inaan maaragtay buugga qaabka u socdo inaan dalmaro kadibna aan idinla wadaago casharada muhiimka ah ee buuggan ku jiro. sheekada buuggan waxay ku socotaa wiil la yiraahdo Santiago oo maaragtay kasoo jeedo Andalusia. wiilkan yarka ah aabihiis ayuu markii hore la noolaa iyo qoyskiisa ayuu la noolaa. wiilku wuxuu aad u jeclaa inuu noqdo safre oo maaragtay adduunka meelo badan oo kamid ah uu tago. aabihiis ayuu wuxuu ku yiri inaan safre noqdo ayaan rabaa. aabihiis markaas wuxuu u gaday koox yar oo ida ah ayuu u gaday. markaas yiri okay, idahan hayso, ida raaca noqo. wiilka kadib ida raaca ayuu noqday. sidaas ayaana waxa ugu suurta gashay hamigiisii safarka oo qof markuu ida raaca yahay iduhu hadba meel la tagaa, idaha dhogortoodu maaragtay hadba meel geeya, saas wuxuu u noqday safre. sidoo kale wiilku wuxuu ahaa wiil buugag badan aqriya. markii dambe wuxuu la kulmaa gabar yar oo la kulmaa oo nin ganacsadaha oo dhalay. ninka ganacsadaha ah waa nin maaragtay ka gadan jiray Santiago dhogorta ka gadan jiray. sidoo kale Santiago marka uu rabo inuu buug soo gato mise markuu rabo inuu magaalada aado wuxuu aga tagan jiray idaha, wuxuu aga tagi jiray ganacsadahan ayuu aga tagi jiray. ganacsadaha gabar uu dhalay, gabadhaas ayuu Santiago si uu rabay wuxuu rabay inuu la joogo si fiican ma jeclaan laakiin on wuu damacsanaa. Santiago waxa uu mararka qaar seexan jiray kaniisad ayuu seexan jiray. kaniisadaas inta uu jiifay marka dhowr riyo ayuu arkay oo ku saabsan asoo maaragtay jooga pyramidka mase jooga ahraamta Egypt jooga. kadib waxa uu tagay Santiago naag ayuu tagay wuxuu yiraahday riyadaas ayaan dhowr jeer arkay maxay la macnata. haweeneyda waxay ku tiraahday okay aad waxaad aadaa Egypt aad ama Masar aad. markaad Masar aadana waxaad heli doontaa hanti ku duugan pyramidka ku duugan. hantidaas la soo baxay tiri hantidaas markaad heshana 10 qaybood markii loo qaybsho waa inaad qayb kamida waa inaad siisaa. kadib Santiago kasoo tagay soo la dhacsanay naagta sheekada isdhahay ma waalan tahay sidaad u aadaysa Egypt way fog tahay iska dhex joog gabadhan yarta aad jeceshahay mararka qaar iskaga imaa buugtaada iska aqriso idahaaga iska raaca nololkaaga fiican ma jirto. saas ayuu Santiago ku fikirsanaa. wuxuu la kulmay nin ayuu la kulmay yiri boqoraan ahay. ninkii ayaa wuxuu kusii adkeeyay Santiago inuu riyadiisa raacdo uu aado Masar hantida duuganna uu la soo baxo. boqorka iyo ayagoo Santiago la sheekaysanayaan waxay arkeen nin dukaanle ah. boqorka ayaa yar ninkaas dukaanlaha ama taqaanaa hadda rootiyo gadaa laakiin awal wuxuu ahaa inuu nin jecel inuu safro laakiin maanta ma safro u jeeda meeshaas iska jooga riyadiisa uu iska dhaafay. adigu hadda waa inaad Masar aadaa hantidaas duugan aad soo heshaa laakiinse waa inaad siisaa xoolahaagan hadda aad haysata qayb kamid waa inaad siisaa. kadib Santiago wuu yaabay wuxuu isir waxay ninkan xoolaha hadda ka qaadanaya adoonba weli hantidii duugan helin. ninkii wuxuu siiyay 2 dhagax uu siiyay 2 dhagax qaado yiri waxa ay ku kala tilmaami doonaan yiri wixii sax ah iyo wixii qalad ah macna midna waa ha midna waa maya uu yiri. sidoo kale wuxuu ku yiraahday markasta aad si safrayso waxyaabaha omaaniska la yiraahdo omaanis markaas wuxuu qoraayo kala jeeday wax waxaa jira ku dareensiihaya in aad riyadaada u dhowdahay mararka qaar dareen waxa jira wax ku dareensiina mase ishaaro yar wax kuu bixina. marka wuxuu yiri ishaarooyinkaas raac uu yiri. kadib Santiago sidii ayuu u rumaystay idihii Santiago uu iska iibiyay ninkii boqorka ahayna qaybtiisuu siiyay. kadib Santiago safar ayuu galay. magaalo ayuu yimaaday Santiago. magaalada markuu yimaaday magaalo waxay ahaayeen dad carab joogaan oo luqada carabiga looga hadlo. Santiago luqada carabiga muusan aqoonin markaas. kadib magaalada markuu imaado nin ayaa wuxuu ku yiri anaa waxaan ku geynaa ahraamta ku geynaa. ninkii lacagtiyo ka xada Santiago hadda wax lacag ma haysto waxba ma haysto nin carab ah lacagta ka xaday. kadib Santiago wuxuu u imaaday nin dhalooyin gada ayuu u imaaday. ninkii wuxuu ku yiraahday aan kula shaqeeyo markaasna isku luqad maysan aqoonin. ninkii shaqo siiyay Santiago ninkii wuu caawiyay dukaanka ninkan dhowr sano hal qaab ayuu iskaga ekaa. ninkan dukaankiis waxba lagama gada jirin. Santiago wuu caawiyay ninkii dukaankii wuxuu noqday dukaamada ugu fiican oo wax laga iibsado noqday.
Santiagona lacag ayuu meeshaas ka helay. Kadib Santiago wuxuu go'aansaday inuusan sii aadin yacni meeshaas oo Egypt uusan sii aadin uu iska joogay yacni magaaladiisan sanadii bar markuu joogay kadib Santiago wuxuu go'aansaday inuu u laabto magaaladii uu ka yimaaday waddanka ka yimaaday Spain inuu u laabto oo xaggaas ida kale u iibsado oo ida raace oo iska noqdo sababtoo wuxuu ka cabsaday inuu hore u aado yacni Egypt inuu aado dhulkaas fog inuu aado ayuu ka cabsaday. Kadib maanta subaxii markuu Santiago rabay inuu baxo aado Spain aado dhagaxdii ninka uu soo siiyay oo yiri mid wax qaladka iyo wax saxda ah ku kala sheegayaan waxay ka soo daateen geedkii Santiago jawaanka Santiago alaabta ku sitay. Kadib Santiago wuxuu ku fikiray dhagaxdan waxay la soo daateen macnaha waxay la soo daateen inaa hore u socotid ay rabaan saas camal. Kadib Santiago wuxuu arkay dad baxaya aadaya magaalada Egypt aadaya saxaraha raba inay sii maraan dadkii ayuu raacay. Intii saxaraha lagu sii jiray Santiago waxa uu bartay nin English ah oo maaragtay chemical ka barta oo rabay inuu aado oo raadinaya yacni nin alchemist ah oo ku nool magaalo Oasis la yiraahdo. magaaladaas Oasis la yiraahdo waa meel waxay u dhowdahay saxaraha saxarahana inta badan qabiilada isku dagaalso markii qabiiladaas isku dagaalaan magaaladan Oasis ayay imaadaan. magaalada Oasis waa magaalo dhexdhexaad yacni dagaal kama dhaco sababtoo ah waa magaalo magangalya oo dadka dagaalka ka soo carara soo gala. sidaas darteed ninka alchemistaha weynka ah wuxuu ku nool yahay Oasis ku nool yahay ninkan Englishka ahna wuxuu raadinaa ninkaas alchemista inuu la kulmo rabo oo ninka alchemist wuxuu buugtaan badan akhriyaa oo yiri laakiin waxaan rabaa oo yiri inaan ninkaas wax badan aan ka barta ayuu leeyahay. kadib safarka sida ay u sii jireen waxay gaareen magaaladii Oasis ayay gaareen. Oasis gaareen Santiago wuxuu caawinayay ninka Englishka ah oo waxay raadinayeen alchemistaha ay raadinayeen. maalin ceelka ayay tageen markay ceelka tageen gabar ay ku arkeen Faadimo la yiraahdo qurux badan. Santiago gabadhii wuu jeclaaday. gabadha Santiago markuu jeclaaday Santiago wuxuu haddana go'aansaday inuu iska joogo Oasis Faadimo la joogo Egypt waxaas uusan aadin. laakiin Faadimo waxay ku tiraahday riyadaada raaca ayay ku tiri. maalin dambe Santiago waxa uu ku riyooday yacni ayadoo magaalada Oasis la soo weerarayo wuxuu u sheegay nin oo wuxuu ku yiri magaalada Oasis la soo weerarayo aan dareemay uu yiri. kadib waxa lagu yiraahday ninkii wuxuu ku yiraahday orod aad ninka magaalada madaxda ka u sheeg in magaalada la soo weerari rabo. Santiago nimanka u tagay wuxuu ku yiri magaalada waa la soo weeraray adoo markii maysan rumaysan laakiin maalmo kadib magaalada waa la soo weeraray dadkiina way isdifaaceen. markii dadkii isdifaaceen alla markii hore loo sii sheegay waxaa dhacday Santiago lacag badan ay siiyeen yacni hanti badan ay Santiago siiyeen. kadib Santiago waxa kulmaya ninkii alchemistaha ah alchemistihii Santiago wuxuu ku yiraahday wiil English ayaa ku raadinaysan alchemistihii wuxuu yiri waan kulanay ninkaas yacni waxaan u diray exercise aan u diray inuu soo sameeyo. alchemistihii haddana wuxuu ku adkeeyay Santiago in uu sii aado yacni Egypt inuu sii aado oo riyadiisa uu raacdo. kadib alchemistihii Santiago israacay alchemist wuxuu yiri waxaan kaa caawinaa inaad Egypt u dhawaato ayaan kaa caawinay. labadood inta israaceen dhex ku sii jireen haddana laba dagaanka sii marayeen qolo kale oo dagaalyahana qabsaday. kadib lacagtii Santiago uu haystay oo laga soo siiyay magaalada Oasis markii uu sheegay in dagaal dhici rabo lacagtii la siiyo dhan waxa ka qaatay nimankii waxa ka qaatay dagaalyahanada ka qaatay. si marka alchemist uu isku badbaashay ayuu wuxuu ku yiri ninkan ila socda dabaylo iska dhigaa mararka qaar. ayagii way yaabeen waxay dhahan sidoo qof dabayl iskaga dhigi karaa alchemist wuxuu ku yiri Santiago haye dabayl iska dhiga dadaan u badbaadno. kadib Santiago waxa uu tagay dabayshii la hadla dabayshii wuxuu ku leeyahay hey dabayl ii bedel dabayl dabayshii waxay tir kuma caawi karo qorraxda u tagay qorraxda wuxuu ku leeyahay dabayl ii bedel qorraxdana waxay tir kuma caawi karo. markaas yuriyaan u tagaa markaas waxay tiraa abuuraha u tag gacanta abuurtay wax kasta yacni waa Ilaahay gacanta abuurtay dabaysha adiga aniga wax kasta abuurtay u tagay ayada dabayl ka dhigi kartay. kadib Santiago wuxuu baryaa Ilaahay oo baryaa wuu ducaysanaa. Santiago markuu ducaysto dabayl ayuu noqonaa. qolyihii dagaalyahanada ahay qaar waxa ay dareemeen awoodda Ilaahay uu leeyahay oo yacni dad waxay ahaayeen kuwan dagaalyahanada ah muslimiin hay ahaayeen awoodda Ilaahay leeyahay ayuu dareema. laakiin Santiago waxa uu ahaay Catholic inuu yahay umaleyn. markii horena markay dhahayn orod dabayl iska dhig mid kamid ah wuxuu yiraahdo haye dabayl soo noqo si aan u arko awoodda Ilaahay uu leeyahay. kadib markii Santiago dabayshii noqday awoodda Ilaahay ay qirtaan yacni awalba way qirsanayeen laakiin way sii aamineen. kadib way fasaxeen Santiago iyo alchemist socodkeedii sii wadeen meel ay tageen. alchemist waxa uu baray Santiago sida bir kasta yacni dahab loogu bedeli karo oo bira soo qabanay dahab loogu bedela.
Santiago markuu cilmigaas bartay waa tagay waxa uu aaday yani socodkiisa Egypt markuu gaaray buurihii pyramidka oo arkay uu qodid ayuu ku bilaabay intuu qoday nibana u yimaadeen way garaaceen waxay dhaheen meeshan waxa ka raadinaysa wuxuu yiri meeshan waxba kama raadinayo riyaan ku arkay Spain aan ka imaaday waxaan ku riyooday in meeshan hanti ku duugan hantidaas rabnaa la baxo kuwii garaacayay markaas ay dhaheen war iska daa ninkan yani waxba ma haye mid kamid ah wuxuu yiri marka anigu nacas mi hadda ka hor waxaan ku riyooday dhowr jeer anoo hanti Spain ku duugan yani soo qaadanayo waliba kaniisad يعني ساس كنيسة تلمامة كنيسة أو كانوا تلمامة وكنيسة وسيحن جري سانتياغو سيحن جري كدي مركو نينك وركي دمي سانتياغو وقصل صابته وحو حقيقة صدي إن همتدو هالكان يسكو دوغنين لكن يكو دوغن تا كنيسة وسيحن جري كدب سانتياغو وحو آذا إسبين مركا أو آذا كنيسة أيوتي كنيسة مركو تجيت كنينك أو تلمامة هوستي سو قدد أيوكو بلاوي كدي مركو جيت كي قدد كو بلاوي وحماشي كهلا برقالي وحماشي كهلا الذهب وحماشي كهلا يعني waxyaabood aad u tiro badan hadii tiro badan oo meesha kale kadib Santiago wuxuu go'aansanay inuu aado haweeneyda tiri Egypt aad oo yani markaad soo heshay hantida duugan 10 qaybood qaybisi haweeneyda ku tiri ayuu wuxuu rabay inuu aado u geeyo yani qaybteeda sidoo kale markaa Santiago waxa uu rabay inuu haddana u soo laabto oo si uu Faadimo ula kulmo maadaama ay Faadimo ay isjeclaayeen marka sheekadu intaas ku soo dhamaatay waxyaabaha sheekada ka baran karnaa waxay markaad rabto inaad riyaar raacdo in dad kugu garab galaya aad arkaysa adduunka oo dhan ay ku saaciday tusaale hadda Santiago meeqo qof ayaa hore u sii saaciday meeqo qof ayaa tiri Egypt aad mar walba uu damco inuu iska dhaafo socodka waxa la dhahayo yani hore u soco ayaa la dhahayo dad hore u sii wadaya soo markaad rabto inaad riyadaada raacato dad kugu saaciday ayaa arkaysa midda labaad ayaa waxay tahay cabsida ayaa waxa ay tahay wax ugu badan oo dadka wadada ka xira mise wax ugu badan oo loo diiday inaan hore u socono Santiago mar walba uu diiday inuu baxo sababtoo uu cabsanayo sababtoo wuxuu isdhahay yani ha aadin meeshaas ayuu isdhahay mid saddexaad aan ka baranin ayaa waxay markastaad kufto inaad kacdo waxa laga yaabaa hadaad xitaa 7 jeer kufto in marka sideedaad hadaad kacda inaad guuleysanayso hadda Santiago meeqa jeer ayuu yani kufay يعني ما قدر أي وحيس أهجا جديدين مر العكتيس ما قدر العكتيس هاد بلغا حدا ما قدر الدباتي مركودا بيسنا الرياضي سووا قاري متى كلا أو أكبرين الآيات وحكستيني قري وحكستيني مكتوب به يعني صوت واحد هاي ننكي أو بايرمت كجوي وحلا إشارة إن أو كنولي إن أو كهلي كره هانتي دوغن إسبين هانتي دو ماشي صحدا أي كدوغن هذا الله شيء لكن موسن هلينا وحا هلي سانتياغو هانتي دو ميل إيسن كدوغنين أي كوري هذا يعني ماشي يتجي وكسو هاي ماشي هانتي صحدا كدوغن كسو لابتو كسو يعني واحد كستا ويقري واحد هليس واحد آذن هلين وواحد قر واحد علف كاجا إنه قفنا مقادنا حتى هذي دور جر قف كلا يكوريوت دور جر قف كلا لو تصيع يعني واحد علف كاجا qofkaas inuu cuno uma suurtagalay sababtoo aday calafkaaga taa aday ku sugaan xilliga aad cunayso mid kale waan ka baranaynaa waxay tahay go'aan qaadashada muhiimada ay leedahay yani nolosha hadaadan go'aan qaadan horay uma sii socayso yani wax kasta go'aan ay u baahan yani hadda waxaad arkaysaa Santiago meeqa jeer ayuu damca inuu joogto iska dhaaf yani hadba mar walba waxa hore u riixaya ayaa waxa ahayd markii qof tiraahdo niyo tag meeshaas aad go'aan u qaadanayo naftiisu iska dhadhicinay sidaas darteed waxaa laga yaabaa kumanaan naga mid ah in loo tilmaamo meesha ay wax ka heli karaan laakiin ayaga ay ku adagta inay go'aan qaataan ay ku adagta inay meeshaas tagaan marka go'aan qaadashada waxa ugu muhiimsan go'aanka iyo ficilkan waxa ugu muhiimsan wax kasta ay nooga hagaagi karaan buugan intaas ku saabsan waa kuula talinaa inaad aqriso waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh